ahaan dalalka islaamka ka dhaco. Haddaan khaldamnana ilaahay dembigeena anaga dhaafo. Waxaan haddana qisadeena bilaawno. Qisadeenan maanta waxay ku saabsantahay wuxuu ku dhacday aabihiisa. Waa wiil iyo aabihiisa. Wiilka yar wuxuu jiray 5 jir. Aabbihii waxayna degganaayeen saxaraha Sacuudiga. runtii saxaraha Sacuudiga aad ayay u dhib badan tahay inuu qofku degganaado. Waa meel aad u gaajo daran oo biyo helin. Wasad biyo kuwiisa adag tahay oo caddaata kurushahay. habeenkiina qabow aad u daran jiro. Maanta nolosheeda waxaa garan karoon qofka xaggaa tegay. qisadana maanta xaggaas yay ka dhacday. qisooyinka badanka meelaha saasoo kale ka dhaco kuwa buugaan lagu qoray maaha. waa kuwa ay garanayaan dadka ku dhaceen oo keliya ayaa garan doona qisooyinkan oo kale. qisadeena hadda soo gallo. bismillaahi araxmaani araxiim. moobilada muuqaalkiina maanta qisadani waxay ku dhacday wiil iyo aabihiisa. wiilku wuxuu jeclaa mar kastaba aabihiisa inuu raaco. aabihiina wuu isku kaxayn jiro meelahaas iyuu soo wadoodi jiray. wiilka yar magaciisa waxa lagu magacaaba Saalax. Saalax wuxuu iska jeclaa inuu aabihiisa raaco. wuu la qabsado saxaraha ee baadiyaha. nolosha daran nolol adag iyuu raba inuu wiilkiis la qabsado. waa wiil mustaqbalka iyo mustaqbalka laayan oonan la rabay inay ku wareejiyaan mas-uuliyadda xaafadda dhan oo isagu hayo. wiilkaasi hooyadii marraba raali kama ahayn inuu wiilkii uu raaco aabihii, laakiin aabihii u kaxayn jiray mar walbaba. isagoo maalin macrib xoolahay kaxaynaya geela ayagoo wato ayaa waxay dhacday duufaan aad u daran. geeli ayaa wuxuu eegay dhanka galbeed. xilli ay wax walba degan yihiin hawaduna leedhu aad u wanaagsan tahay, iyo hal meer keligeed waxaa bilowday duufaan lama filaana. waxayna ku dhacday xoolihii kala hadlaysay. hashii geelaha iyuu soo qabsaday wiilkeeda Saalax. isla markaana geel wuxuu dareemayay waxaynan xoolo caadi ahayn oo bini'aadanku dareemi karin. ilaahay xoolaha si gaar ah siyuu dareemsiiyey. isla markaana waxay dareemi jireen xooluhu dadku dareemay hooda dareemi jireen, ayagoo isla markaana waxa dhicidoodu iyo dareemiyey. kolkii qisadii saa u dhacday, aabihiisa u go'aansaday inuu xoolaha raacsado, laakiin duufaan aad daran ayaa ku dhacday. wiilkiisiina aad ayuu xanuunsaday. meesha iyaguna ka soo qaaday duufaantii aad iyo dhaxanta aad u darayd. aabihiisa wuu u baqay wiilkiisa, wuxuuna degdeg ula soo cararay ilaa xagga xaafadda. waxuuna raadiyey